maanta xisbiga shir saxaafadeedkan waxaa uga qayb galaya anigoo ah Jamaal Cali Xuseen iyo Mujaahid Cali Guray gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. dhowr qodob baan ka hadli doonaa. qaar waxaan u dayn doonaa Cali Guray oo ka hadli doona. anigu saddex qodob baan ka hadli doonaa. laba qodob oo kalena Cali Guray ayaa ku darsan doona. shantaa qodob baan ka hadli doonaa maanta. anigu saddexda qodob baan ka hadlaya mid waxa weeyaan تعديات الصحافة لو سمينا أيه قدر كلامك كهلا دنا الرمح بريجا نبتكليه ده مكشرة قدر كصدق هذا كهلا يعني وحوي الرمي سون ولا يا مهن كده عاي وطك كارهان لولا كيس سياسة كده حشري حسبك حسب محافظ الكلمية هذا كهلا أرك هو رئيس صحافة بعد مدة صحافة الصومال لأن التعدية بدنا البوجستي arrinka ugu weyn ee aan aad u qoseeyo ayaan ka hadlay ana waxa way xarigii mar labaad lagu sameeyay Yusuf Cabdi Gawoowe oo mulkiilaha Haatif shirkadda Haatif hore inuu ogeyno hubaal ayaa iyada albaabada loo laabay haddana waa tii mar kale Haatifna lagu xajiyay marna waa tii la xiray Mujaahid Yusuf Cabdi Gawoowe haddana waa tii imka dib loogu celiyay anaga waxaan arkaynaa arrinkaasi in loo ku taxaqulo Yusuf Cabdi Gawoowe oo muwaadin ah in iyadoo aan sharciga loo tiigsan mar walba sidii aan habboonayn dariiqada looga xirayo oo tacadi loo geysanayo arrinka ugu weyn ee aan u haysano in lagu haystaana ay tahay markan labaad loo xirana tahay taageeradu siiyay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka muwaadin kasta xaq uu leeyahay xisbigu doono inuu taageero wati dastuurka uu nasiiyay marka xukuumadda waxaan mar kale ugu baaqaynaa in haddii ay joojin weydo tacdiyadan ay saxaafadda u adeegsanayso badhna waa la iibsado laaluush baa lagu bixiyay hantida ummadda ayaa lagu laalushay badhna waa la xiray oo kuwii mowqifka lahaana waa la xiray oo waxa la yidhi xorriyatul qowlkiina kama hadli kartaan oo ma soo qori kartaan marka de dalku halis buu naga gelayaa xukuumadda kulmiyeynayada awal markii hore oran jirtay saxaafadda dhibaatooyin baa loo geystaa marka waa baaq kale oo aan dirayno haddii baaqan dee mar laga soo jawaabo ay waxay nagu kalifi doontaa inaanu abaabulno saxaafadda aanu abaabulno oo anagoo xisbiya aanu abaabulno xisbi qarana oo aan samayno mudaharaadyo aan kaga soo horjeedno tacdiyada saxaafadda loo geysanayo xadhiggii ugu dambeeyey ee Mujaahid Yusuf Cabdi Gawoowe haddii aynaan ka dagaalamin taana oo aynaan arrinkaasi aynaan hor joogsanaa runtii waxay nagu keeni kartaa in marka dambeba kulligeen shilfaha laynoo laabo taasi waa qodobka kale waxa weeye arrimahan bariga ka dhacayay marka taleex annagu waxaan u daraynaa baaq nabadeed ayaan u daraynaa xisbi ahaan xukuumaddana waxaan leenahay waa loo igmaday inay nabadda sugto xuduudaha sugto Somaliland laakiin inay ku darto miir dadka walaalaheena ee halka ay nala degan Somaliland aynu wada leenahayna inaan xoog lagu muqoorin nabad iyo waan iyo walaaltinimo iyo gacan loo haadiyo ayaan arrinkaas ugu baaqaynaa arrinka kale ee saddexaad ee aan jecelahay inaan si degdeg uga hadlayno waxa weeyaan waa arrinkii soo noqonayay barihii dhawad wada arkaysayno xukuumaddu waxay dabada ka wada abaabuleysay salaadiin madax dhaqameedyo tifiyada la soo fadhiisinayay anagoo reer hebela waxaan taageersanay musharaxnimada madaxweyne anagoo reer hebela waxaas waa wax nagu ceebo sharaf dhacnay nagu ah waxaan halka ka muuqda kalsooni darro fara badan oo xukuumaddu qabto de odayaal ay soo abaabusho oo halka soo fadhiiso waxa la leeyahay u tarayay ma jiraan codka dhalinyarada iyo haweenka iyo odayaasha ayaa iska leh Somaliland doorashaan ayaa lagu soo baxay dawladda doorashay ku soo baxday kursiga lagu fadhiisay xoog may fadhiisanay odayaal halka la soo fadhiisay watii ay ku dhileecay jirtay dawladdii horeeto imika iyadaaba baradheeraysay waxa weeyaan odayada la soo fariisinay la adeegsanayeen waxaan leeyahay hal xishoodo inoo wanaagsana idinku waxaad inaad dadku dhan baa u dhaxtiin hadda odayatiin hadda oday sheeganaysa hadda oday rasmi ah sheeganaysa oo aad salaadiin rasmi ah sheeganaysa sharaf dhacba idinku tahay in halkaas soo istaagtaan oo tiraadaan halkaasaan taageersanay inaad tiraadaan maaha waa u tismantiin madax dhaqameedo saddexda xisbi mucaaradka ay u sameeyeen inay waxa sameeyaana maqaamkoodii iyo sharaftoodii waxa loo arkayaa dadku inay tahay waji ku macaash iyo in la iibsaday damiirkooda wax wanaagsan maaha wax inoo wanaagsan maaha xukuumaddana waxa leeyahay hadda 10
boqolaal shir jaraa'id samaysaan oo boqolaal oday soo kaxaysaan waxay ummadda doonaysunbaa marka dambe dhacaya miirka u dhiga cagta u dhiga hantida ummaddana ha ku baabiinina shir saxaafadeedyadaa aad soo abaabilaysaan hataa niman aan salaadiin ahayn qaar aan suldaan rasmi ahayn oo sheeganaya suldaan baan saasaan ahay hadda waana been rasmi ah oon ognahay ayaa halkaa soo fadhiisiiseen oo tvga qaranka ka soo daysay waxa weeyaan waanu idinku dacweyn karnaa maxkamad baan idinla tiigsan karnaa shaarkana aanu idinka siibi karaynaa laakiin waanu weli damiirkayga ayaan hoos u dhigayna waanu idinka xishoonayna idiima wanaagsana waxaa samaynina xisbiga kulmiyana sidaa dee hawlo dhexdiina ha u dagaalamin oo waxa weeyaan bal wax iskula hara ciddaa la hadlaysaa waa guddoomiyihiini muuse biixina de waa guddoomiyihiini maaha inaad tvga qaranka laftirkiisa usoo adeegsataan oo u isticmaashaan wax kala dib u ah sharaf dhacna waa idinku tahay dadkuna waxay eegayan waxay leeyihin warma nimanka sidaa ula dhaqmaaya guddoomiyahoodii iyo xisbigoodii ayaa dal inoo hogaamin karaya ama cadaalad inooga samayn karaya ummadda dhexdoodii iyagana markaa arrinkaana halkaasaan kaga baxayaa waa inay weji ku macaashinimadan inagu soo badatay waxaad moodaa ilaa intii ay dawladda kulmiyeed waddada ay qabsatay waddanka in arrinka weji ku macaashka iyo abaabulka iyo dadka halkaa lasoo fadhiisinaya inuu noqday arrin sharaf dhac inagu ah ummaddii kale ee dimuqraadiyadda inagu taqaanay hanaanka dimuqraadiyadda inagu taqaanay suldaanka odayga cumaamadda wata waxaa lagu yaqaanay inuu yahay oday dhex ah oo wanaagsanay war salaadiinta siyaasadda ha gelinina ka daaya ha isku qasina madaxa dhaqameeda ha isku qasina inaga daaya qabyaaladda iyo waxa aan wanaagsaneyn masiirka ummadda wanaagsaneyn iminkana waxaan ku wareejinayaa mujaahid